inta badan aragtida odhanaysa waxaa jira mu'aamarad iyo sharqool ayaa ah xujada ay dawladaha intooda badani u maraan inay basaasaan shacabkooda iyadoo tusaale ahaan dalka Mareykanka uu ka jiray qaab dhaqameedkaasi muddo aad u dheerayd oo taariikhda ka mid ahayd laakiin maanta waxaa la mid noqday tiro dawladaha oo kale kuwaas oo ka shaqaysiya qaybaha kala duwan ee agabka tiknoolajiyadda si ay u basaasaan muwaadiniintooda iyadoo lagu eedeynayo muwaadinka inay khiyaamo qaran galeen ama ay kooxad jira xiriir la leeyihiin barnaamijkeena xogta daasoona waxaynu daaha kaga feedaynaa qaababka ay xukuumaduhu u maraan marka ay basaasayaan muwaadiniintooda telefoonka ayaa ah shayga ugu horeeya uguna sahlan ee ay xukuumadda dalkaagu kugu basaasi karto waxaana jira heshiisyo u dhexeeya xukuumadaha shirkadaha isgaarsiinta ee dawladuhu leeyihiin iyo hay-adaha sirdoonka ee heer qaran kuwaasoo ay suuragal u tahay inay isdhaafsadaan macluumaadka dhanka sirdoonka waxaana u suuragal ah in howlwadeenka ku basaasaya uu mikrofon ku xidhan karo khadka telefoonkaaga adigoo aan adigu la socon isagoo helaya xogaha ku saabsan dhaqdhaqaaqa telefoonkaaga sida telefoon aad la hadashay iyo mesajyo aad dirtay ama lagu soo diray qaabka labaad waa akawnkaaga xisaabaadka kaasoo ay suuragal u tahay basaasiintu inay ku xidhaan softwareka xidhiirka la leh shabakadda Google sida Wi-Fi iyo NSC oo iyagu baari kara xogaha ay hayso barta Google lafteedu waxaa kaloo ay xukuumaduhu kugu basaasi karaan kaadhadhka kala duwan ee elektaroonikada ah kuwaasoo xambaarsan macluumaad badan oo shakhsiyaadkaaga ku saabsan inkastoo dadka qaarkii aaminsan yihiin in kaadhadhkaasi xirfadan yihiin haddana waxaa suuragal ah in dariiqo sahlan lagugula socon karo dhammaan dhaqdhaqaaqa xisaabeed iyo ka xidhiidh ee aad samaynayso waxaa isna ka mid ah oo muddooyinka dambe ku soo biiray sanduuqa madow ee ku rakiban gawaarida la sameeyey wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 aana sanduuqa laga heli karo dhammaan wixii gaadhiga gudihiisa ka dhacay waxaa kaloo shacabka lagu basaasaa kamaradaha qarsoon oo ah kuwa ku rakiban gaadiidka ay wataan ciidamada booliiska ee wadamada qaarkood kamaradahaasoo duubaya gaadiidka wadada maraya iyo nambaradooda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa maalinlaha ee dadweynaha kamaradaha ilaalada ee qarsoon ee aad xafiiskaaga ama gurigaaga ku rakibayso ayaa ah kuwo xidhiidh la leh shabakadda internetka taasoo kaaga filan in lagaaga soo dhaco oo lagu sumaro oo lagu basaaso waxyaabaha kale ee la isku basaaso waxaa ka mid ah diyaaradaha aanu duuliyuhu wadin oo aan ahayn oo keliya kuwa ay isticmaalaan ciidamada cirka ee wadamada qaarkood laakiin ay jiraan qaybo kale oo diyaaradaha yarar ee kamaradaha xambaarsan kuwaasoo ay suuragal u tahay inay hawada sare duulaan oo gaadha oo macluumaad ka soo qaadaan meel aanu qofka caadiga gaari karin macluumaadka oo qayb ka ah howlaha basaasnimo ee la raadinay